la caawiya dowladdu waa laga yaabaa intaas oo wax oo kala duwan inay ay rabto inay fuliso ammaanka ilaaliso maxaa tahay dhaqaalihii waddanka u qaado waxyaalo badan waana ugu mahadnaqaynaa wax kasta oo ay sameeyeen maasha allah tabaaraka allah taas aan horta ku guubaabinaya dowladda inay samayso xataa dowladda waxay samayn kartaa dhul beereed ayaa dadka oo xoogaa dhaqaaqaya inta la siiyo oo ay ka shaqaysan karaan dhul beereedkaas oo dowladda u keenta cagafyadii qalabka lagu shaqaynaya xataa dadka yaqaan beeraha sida loo subiyo taasna aadan ugu guubaabinaya dowladda dadka masaakiinta in lagu hago dhinaca waxbeerashada annagoo dhanna dadka waxaan qurbaha aan ku waaninaya walaalayaalo dhinaca waxbeerashada waddankeennii aan gashano dhaqaalo guryo la dhisay iyo wax sariiro lasugu faanay iyo baabuur wax ma taraan wallahi ani soomaaliya haddaan tago waxaan rabaa tuuladii aabbahay ka imaaday inaan aan teelt ka dhiso beeraha aan ku dadaalo dadka inaan ka caawiyo siiba aniga nafteeda maa dadka inaan caawiyo xagga beeraha marka waxaan aad iyo aad uga codsanaya codkayga qofkii maqla qofkii dhaqaale haysta arrimahaas ani aan ka hadlayo adiga inaad isku dabakdid oo bliis aad ku camal fashid please on please wixii xun aan ku hadlay ka tag wixii fiican aan ku hadlay waa ku baryaa wax ka qaado waana cafiyo masaabax ilaahayna waxaan nooga baryaa guul wayna sii dhaaraaday hadalka marka hadal badan ahaan ma buuxsho waqu kaa hadde waxyaalihii kale oon gadaal kasoo xasuusto barnaamij insha allah aad dhici doonto inaan bilaabo oo on aad uga helay saaka shiikha aan fiirsanayay oo ka hadlayay waxyaalo very easy ah xataa waxaa ku jirtay barnaamijkiisa yaa allah subxaan allah waxaa ku jirtay 0.46 minute 1 minute ma la gaarin yaa 46 minute second 46 second ayuu duco aad iyo aad u yaabla badan oo ku sheegay marka channelkaasna wuu i cajibiyey waxaan rabaa channelkaas inaan soo gudbiyo laakiin aniga magaca waa soo gudbin karaa hoosaan kusoo qori karaa laakiin channelkaas laakiin maxay ahayto channelkaasna waa aad channel u fiican oo hadda saaka aan dhagaysanayay magacana waxaa la dhahaa haddaan hadda ka sheego runtii waxaan rabay inaan cajalad dhanka duuba keligiis waxaa la dhahaa channelka waa magaca shiikha waxaa la dhahaa khaalid cabdi waa macalin basiid oo waa dhalinyaro muqdisho kula joogaa wuxuuba soo galay channel waxaad saakan qorayay wuxuuba soo galay asaga dhanba December subscribe ugu sameeyay channelkiisa maasha Allah wallahi alcadiim rabbul arshi kariim inuu iga codsanay aniga i cajibiyey wuxuu soo jeediyaa qaacida nuuraaniyada qofkan qaacida nuuraaniyada aqoonin channelkaas gal very easy xataa minidi badan ma ka qaadanayo quickly soo gan ana qaacida nuuraaniyada waa soo dhigtay alxamdulillah lacag badan xataa iga baxday wallahi bishii 50 euro aan bixinay macalimo Suuriyaan ana bari jirtay 5 months aan soo dhigtay marka qaacadunada laakiin 10 ka tabnaad wixii ka dambeeyay iyo taas waxaan u baahanahay ahkaamtiisa biin ila 10 gadaalo aan sugi doonaa hadda wuxuu marayaa 10 ka labaad marka qofkii farta aan aqoonin aniga xataa laftkayga waa ka sii wali waa carabkii inuu sii adkaado u baahan yahay marka walaalayaal aan ku dadaalno waxbarashada qur'aan akhriska ducooyinka dhalinyarta ani waan arkay ducooyinka dad badan jira aan aqoon walaalayaal ducooyinka ku dadaalno marka saaka wuxuu ka hadlayaa ustaadkaas ilaahay khayr badan ha siiyo halkan aan ku qoray aniga waxaan ahaa dadka wax qora runtii aan sheegay qoraalkana wuxuu ku fiican yahay wax ma ilaawaysa hadaa qoratid qoraalka laakiin inta iska qortid isaga tagtid ma sideeda camal inta qortid qoraalkaaga dib ugu noqo waxa waay marka channelkiisaasna waa inigu soo qora hoos halkan uu igu qoran yahay okay laakiin carabi uu ku qoran yahay ma aqaan inuu soo baxaayo isaga inaan waca waa telephone numberna uu ugu qoran yahay maasha Allah waa jeclaha channelada telephone numberkooda facebookooda wax kasta ku soo qoro qofkii marka walaal waa la xiriiri kartaa si easy ah aniga insha Allah channelkayga doon ku qornayn gadaalan ugu soo qori doona waan raadin doona technique waa la iga fiican yahay waxyaalahan aaladda inaan maartay aan raadiyo hab inaan barto على كل حال ساكو وحو سو جيديي دعو إيجا عجبسي دعاداسنا كل إنو وذا يقانا أمالينا وحينا channelkiisa markuu kow maalin kusoo galay markii labaad uu duubay adi laba bilood ka hor waana saan u leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la naqula carabiyan waxaan ku qoray af Soomaali la naqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wuxuu dhahay rasuulka ahabbu ilayya mimma dalacat ilayya al-shamsu waxaan ugu jecluu yiri wax ka aan ka jeclahay ma jirto yiri oo qorraxda ay u soo baxdo macnaha saas waaye markii la fasiro halkan ahabbu ilayya mimma dalacat ilayya al-shamsu wuxuu yiri oo bacdeen waxa ku dhameystiraysaa asaga wala hawla wala quwwata illa billah marka waxa waay ducada hadan ku soo noqono subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسولك صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت الشمس. وحن كجعل هاي مجرته وأن هين دعادان qoraxda u soo baxdo saas aniga macnaha ku fahmay marka aad u fiican tahay had ka soo qaad marka magaca ilaahay dikriga ilaahay aad akhrisid jirkaaga dhiigaaga meel walba furfurmaysa anaa dareemay nafteeda dareentay marka waxaan kugu waaninayaa qofyo muslimka adkaarta afkaada ku hay subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah wallahu akbar كلمتان خفيفتان للسان ثقيلتان على الميزان وحواي معناها لبا كلمتين معناها لبا كلمة وقفيف كؤه عربك ميزانك إلهي آدي عصب وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كسو قال مركا هو إلمها حفايدك بدليسيد مركا دو حد قيسيد مركا برجكذا كرينيسيد مركا مجكذا كجرتيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله استغفر الله صلي على النبي اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعوين كاغاس أسكو حجابتي مارتا والله غرغاغو كوبلالايا غرغاغا مشاكل ما كجيرايو بوق ملهيسيد waxa way aniga markaan dhalinyarta hadda ahaa oo ilmahayga wada yaraayeen kulli maalin walba gurigayga 10 ka shinaan jiray noloshayda dhan wallahi 19 sano gurigayga wuu ku soo hagaagay kabacdi marka xoogaa gadaal aan ka daciifay iimaankii wixii dhacay ilaahay unba og marka iimaankiina kor u qaada maalin walba iimaamka jidideeya iimaamka kor u qaada marka iimaanka kor u qaada إن شاء الله وأنا سنوصل قوي ما بيسده إنت عن بدنا هالي دونتا وحنسده هاي لبك كلمة ونده لكن وحواي مركي لا بلا هذا كوسي ببلارتا مرك وحن آد ربع إن هكان هدنا عن وجهه دقيقة كلية أنا وحن آد فرصة هرت تشنا الله هرت مقدشو كيالو وحن ربع لأن يرت مقدشو مد إن أنا هل ربي إن أنا قصوا هلا وجوني إن ربع أنا أوعى بإن الله وحن آد وهرت ugu hambalyeynaya channelka Manson ما شاء الله ayaan horna telefoon kale oo iga halaabay aan barnaamij ku duubay barnaamijka inuu soo gudbin oo Manson aan la hadlay oon u hambalyeeyay oon leeyahay insha Allah aan soo gudbiyo oon la shaqeeyo ba ilaahay amka telefoonki kaleeto iyo laba tele midna waa ku duubay midna markuu ii suurto weeyda ala kulli xaal marka Manson ayaamaan xoogaa waxa jir weynasanaaya labadii bilood waa inay laakiin wali way shaqeeyaan wallahi dadka masaakiinta way caawiyaan marka Manson wax gaari kara horta jannaad gaari kara Manson maba u maleynaa inuu jiro maxaa yeelay intii ay qabteen hadda sanadkii ramadaanka hore ramadaankan qof subiyay aniga ma arkin maxaa dhahaa oo Soomaaliyeena kamid ah meel gudu iyo dibadda because dadkay dhaqaalayaan laakiin dadkii soo sadaqaystay iyagana ajir weyn ay leeyihiin ilaahay ajirkooda ha siiyo marka Manson aadan ugu hambalyeynaya Manson iyo groupkooda iyo aday Cabdulla iyo kulligood waa u hambalyeynaya labo waxaan rabaa bas inaan sheego marba magac kale inaan sheego halkaas Manson aan ka amaano kow laakiin channel kalena waan fiirsadaa dhalinyaro kale insha Allah tartiib baan ula xiriiri doonaa maadaama waqti badan aan rabay inaan la xiriiro oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qadar ma ii suurtoobin waxaan rabaa horta inaan u hambaleeyo waxaan rabaa dhalinyarta dhan inaan waaniyo channelada leh kuwa aan lahayn kulligood waxaan rabaa walaalayaalo dhalinyarteeniye waa in baryaaya talentiya leedihiin waa in baryaaya wadankiya joogtiin waa in baryaa caasimadiya joogtiin waa in baryaa geesihiin fiiriya waa in baryaa wax badan jira ka shaqeyn kartiin wallahi waa ku daalna hadalkan badan oo tarorogta aniga laftirkayga waxaan bilaabayaa biidnillah inaan barta xataa telefoonka qoraalka korka looga soo qoro markii macnaheed ka cajalada ay socoto oo hadal badan iyo aan joojiyo oo shaqo keeno oo cooking aan soo sameeyo oo beerta anoo ka shaqeynaayo aan soo sameeyo beert weyn aan leeyahay insha Allah sida xataa ka soo qaad markii banaanahaaga khudaartaada markii aad cuntid aad qashinka isaga tuuri lahayd aniga waxaan leeyahay meel gees aan u samaystay oo gardenkayga maadaama ay weyn tahay alxamdulillah idaha ma sha Allah idaha gurigan aan waxaan sameeyay ciidiyan qoday waxaan soo qaaday xashiishan soo qaaday xoogaa xashiish waxaan ka wadaa naqan soo qaaday gardenkayga naqa markii la qodo
naqiyo qalale xoogaa iyo mid caleemaha xataa geedaha kasoo daato wixii dhana geesaa dhigtaa waxaa sameeya meeshiian qoday waxaan soo qaadaa banaanihii waxaan soo qaadaa waxyaalihii liintii liin dhanaantii wax kasta oo adiga la cuntay bataatadii afiiqday adi ayi wax oo xataa ukunta qolofkeeda xoogaa yara biiraacin haddii kale waxba maaha wixii dhanaa meel kusoo ridanaysa ama baca ku diyaarsanaya meel iska dhigo ha iska tuurin waxaa soo qaadanaya ciid hadhowti waxay kuu noqonaysaa ciid waxaa soo qaadanaya wixii meeshii dhigaysaa waa safaysaa waxaa la dhahaa compost englishka waxaa lagu dhahaa compost xataa google-kaa gelin kartaa compost how I can do compost wuu kusoo baxayaa dadkiio practic u suubinaya aniga dadkayga youtube-kan ka barto long time aan aadan u xiiseyn jiray marka waxaa samaynaysaa marka allahuma salli cala sayyidina maxamed wixii ku shubaysaa meesha waxaa ku daboolaysaa wax yar ciid oo ani ciid lasoo gadaa jirtay iyo ciideydii marka ciidad xoogaa saas ugu shushubaysaa haddana waxaa korka ka saaraysaa allahuma salli cala sayyidina maxamed naqi qalalnaa iyo waxyaalihii haddana ciid kale dhag korkii dhana wax kasii saaraysaa ciid kor u dabal hadhow iska dhaaf hadhow ayaamo kadib maybe 1 week maybe 2 week wixii dhan waxay noqdeen ciidba hadhow marka kasoo qaad wax beerinaysid hadhowti ciidaas nafaqay leedahay way gadaan wadamadan waxay sameeyaan mataqaana waxaas ciidda lagaa gadaayo oo lagu soo shubo bacyaasha waa ciid laga sameeyey waxyaalahaas laga sameeyey compost-kaas laga soo suubiyey oo lasoo waxeeyo oo bacd lagugu soo shubay hadhowtaa soo gadanay adi gurigaaga ma ku samaysan kartid xataa soomaaliya haddaad joogto gurigaaga gaardanka uu shamiito yahay gasacyo soo qaado caagag soo qaado waa samayn kartaa ka fiirso google-ka waxaa ku qoran compost ku qor compost how I can do compost insha allah hoosan kusoo qori doonaa channelka maahane kan kale markaan si fiican spellingkiisa usoo qoro aan soo qordo marka compost ka fiiriyo google-ka compost ha maxay ahayd to hadhowti aniga marka hadda insha allah haddii aan xoogayga insha allah qof oo gardener ah helo waxaan bilaabaa xataa laftarkayga biidnillah iisoo duceeyay 8 sano ma samayn laakiin waan rabaa inaan bilaabo inaan sameeyo gardenkayga ka sameeyo maxaa dhahay geedo oo allahuma salli cala sayyidina maxamed tufaax ah kasoo qaad waxyaalaha markaa suuq ka socda hadda kasoo qaad maaloo liidalaan tagay wallahi geedaan arkay aad raqiiso laakiin waxaan ka baqaa intaan soo qaaday inay iga qalalaan marka waa inaan ahaadaa very serious waxaan rabay inaan sameeyo caziime inaan yeesho waaye oo aan bilaabo marka insha allah caziimadaas ilaahay isiiyo inaan bilaabo marka insha allah waana guuleysta walaalayaalo wallahi alcadiim waxyaalahan haddaa qofka gaardan leeyahay aad kasoo qaada wadamadeena galbeedka dadka guryaha ayaga ay leeyihiin ama dadka guryaha dowladda oo kale jaanis u haysaa inay wax beertaan xataa gurigaaga haddaa adi lahayn why not wax beero tanagi ku beero caaga ku beero wax la beer waxa adi soo saartay barsamee waqtiga ambiyada rasuulullah sal slam iyo waqtiga ambiyada waxay ka shaqayn jireen dharkoodana ayagaa tolan jireen cuntadoodana ayagaa soo saaran jireen ma maqashe way samaysan jireen saas ambiyada taariikhdooda farfiiri marka inaan isku taxalluujino waa dhaqankeena inaan soo celino kasoo qaad dhaqankii Soomaaliya haamihii in la talo xataa duntii gacanta lagu tali jiray inaan iska fadhin inaan mar walba telefoonna aan ku jeedin waxaasoo dhan aan sheegayo anay igu socotaa okay Soomaaliya waa in salaamay subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk hadaa rabtid channelka oo macnaha aad rabtid barnaamijka inaad aad wada dhegeyso haddii kuu suurtoobi weydana marar kala duwan dhegeyso wax unbaa ka faa'iideysa aniga laftayga waan dhegeystaa dadka janaalada waan galaa waan u daawadaa waan u qoraa marka hadda waqti u haysid waaye ilaahay waxaan kaaga baryay khayr inuu ku siiyo waxaan rabaa inaan halkaa mar labaad uga codsado gabdhaha Soomaaliyeed walaalayaal oo aan isku duubnaano hooyooyinka Soomaaliyeed siiba youtuberada aan isku duubnaano wax aan bulshadeena isu gudbino aan isi soo raadin aniga waan damcay dhowr jeer inaan dad qaarkood la xiriiro way ii suurtoobi weeyay telefoonadooda baa si iga noqday marka waan jeclaan lahaa inaan isla xiriirno wax inaan kusoo kordhino dadkeena gudaha iyo dibadda ما شاء الله هنبلي يعني ليها دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه